meesha ama bahalla kugu cunaana waxa weeye muslimka ilaahay magaaladu qabowsanayaayo magaaladaas aanu hadda xaggeeda ka imid kowd waryaha kii degeel ahaaday meesha fadhiyo may eedadaaday war saaxiibow macaana meeshaan bahalladu amay kugu cunaan bismillaahi raxmaani raxiim geed hortiisaad fadhisaaye laba habeenaad magaalada ku soo dibata laba habeen markaas aniga waxa iskaga kay dhigay reer magaal Soomaa may waa la yaabo saaxiib macaana meeshaad fadhidaan la yaabanaha meesha ama bahalla kugu cunaana waxa weeye muslimka ilaahay magaaladu qabowsanayaayo magaaladaas aanu hadda xaggeeda ka imid kowd had meesha ku haysaa waxa weeye baadiyaha cidlada ah saaxiib magaaladaada wallahi billahi ku fiican saaxiib macaana magaalada ma okay su'aalan ku weydiinayaa markii aad golaha geela iiga tagtay goormay ahay waxay ahayd adigu laba maalmood hore ahayd ama haye maxaa warkaagii bedelay marka ma codkayga aniga waxa bedelay codkayga magaalada bedeshay qofka waxa la rabaa magaalada maya warkaagii maxaa bedelay qofka waxa saddex habeen oo qurahaad magaalada codkayga waxa aniga maya codkayga waxa bedelay aniga magaalada jibinaya soo galaysaa no qofka waxa la rabaa magaalada in maaragtay codkiisa iyo asaga dhanba uu si noqdo moogta iga dalxiyaana 7 toorey ugu dhufanaan toorey kala baxaysa iga dalta bismillah niw jaahilnimadan iyo tooreyda balaayo si xambaarsan iga dalta giya ay ugu dhiman war ka tagaya iga tagniyo bismillah saxaasa adduunyada ilaahay barigata ilaahay toorey qoodha xirada fiiri hadda 3 bari ka hor golaha iga tag laba habeen iyo laba maalmood wuxuu soo joogay magaalada galabtay u soo gala asagoo waxa weeye kiimiya kan meesha bahallada kugu cunaan reer magaalo soo noqdo ummadda waxaan la yaabaa reer magaal aysan ahayn iska dhigaysa hadda qofkaas kabaha qolofta wata waxa uu ku hadlayay waa maqlaysay hor dhulka ilaahay waa la wada joogaaniyo waan idin salaamayaa